kumanaan kamida shacabka ku dhaqan caasimada Hargeysa iyo gobolka Maroodijeex ayaa isugu soo baxay garoonka Timcade kaasoo ururka Waaberi uu ku soo bandhigayay kunkiisa qof ee uu kaga qayb galayo tartanka wareega kala reebista ururada siyaasadda waxaana halkaasi taageerayaasha ururka Waaberi ay ku soo bandhigeen taageerada mugale ay u hayaan ururka Waaberi gudida furista ururada siyaasadda oo iyaguna goobjoog ka goobta ayaa tirinta codadkii ay ka bilaabeen goobtaasi waxa ay ku dhawaaqeen in ururka Waaberi uu ku guuleystay tiradii looga baahnaa ee kunka qof oo uu dhaafiyay ilaa 2,000 qof gudoomiyaha ururka Waaberi Cabdirasaaq Taash ayaa si xamaasad leh ay shacabka goobtaasi isugu yimid kor u qaadeen iyagoo la dhacsan sida ay mar walba ugu heelan yihiin siyaasadda uu ku hagayo wadanka urur siyaasadeedka Waaberi iyadoo aan raggii la tirin in gabdhihii ay dhaafeen tiradii loo baahnaa taas ayaa wax weyn ah waxaan leeyahay gabdhaha reer Hargeysa gabdhaha reer Waaberi guul iyo gobonnimo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa Soomaaliland ha noolaato runtii maanta waa maalin weyn waa maalin u weyn reer Waaberi waa maalin u weyn dhammaan Soomaaliland oo processkii kala hadhka ururada ee ugu dambeeyay uu socdo oo ay Hargeysa tahay magaaladii labaad ee saaka lagu qabto sidii caadadu ahayd Waaberi isaga ayaa inta badan daafura tartanada alxamdulillah marka de wixii maanta dadka reer Soomaaliland fariintii ay direen waynu wada arkaynay waxa marka ay muhiim ah inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo dadka reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan dadka reer Hargeysa oo maanta runtii cududooda soo bandhigay tusayna inay doonayaan xisbiyo miisaaman iyo dal Soomaaliland la yiraahdo oo hela itraaf iyo dawladnimo buuxda oo leh dal midaysan iyo dad midaysan Maxamed Faarax Miigani oo xogayaha warfaafinta urur siyaasadeedka Waaberi isla markaana afayeenka ururka Waaberi ayaa dareenkiisa ku cabiray sida ay ugu faraxsan yihiin ugana mahadnaqay shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan ku dhaqan gobolka Maroodijeex ee isugu soo baxay caasimadda kuna guuleystay isla markaana muujiyay cududooda iyo taageerada ay u hayaan ururka Waaberi saaka waxay ahayd maalin ku weyn urur siyaasadeedka Waaberi waxay ahayd maalin uu muujiyay cududda taageero ee uu ku haysto gobolka Maroodijeex gaar ahaan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa maanta waxa meeshaasi ka dhacay wax ay indhaha bini aadanku aad ula yaabaan garoonkii Timcade basketka dhammaan gad ilaa gad uu buuxsamay iyadoo aanay weli iman dadkii ku tala galay inay soo gaaraan xafladda maadaama ay maanta ka dhacsay magaalada 14 urur ku soo bandhigayeen waxa ku batay jaamkii magaalada iyadoo aanay basaskayagii kala badh soo gaarin goobtii ayaa garoonkii buuxsamay intaanu baska ku soo qaadnay waxa ka tira badnayd inta lugta ku timid inta iyadu gawaaridooda ku timid guddigii markay tirada bilaabeen waxay aad ula yaabeen ummadan isku soo baxday dabadeedna waxay yiraahdeen isha macallina Waaberi 4,000 iyo wax ka badanba goobta way fadhiyaan dibadda 4,000 iyo wax ka badan way joogaan dad ciida ka badan oo goobta soo gaarina way jiraan ilaa imigada aan idinla hadlayo oo 9 googo ah dad baa weli ku soo qulqulay garoonka Timcade arintaasi waxay cadeynaysaa taageerada ay u hayaan dadweynaha reer Soomaaliland urur siyaasadeedka Waaberi oo ah urur jiha cusub u jeexaya siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland qaar kamida haweenka iyo taageerayaasha ururka Waaberi ayaa shacabka ku dhaqan caasimadda uga mahadnaqay dareenka iyo cududda ay muujiyeen haweenka waan u mahadnaqayaa dhammaan intii timatay waan u mahadnaqayaa ilaa intii maxay ilaa saaka salaadii soo jeeday 5tii aroornimo timid dumarkii ka yimid caruurtooda waan u mahadnaqayaa dhammaan waxaan leeyahay reer Waaberi aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin marka labaadna waxaan aad ugu mahadnaqayaa reer Hargeysa Maroodijeex fiifa waxaan maanta aan gobolka Maroodijeex ka dhacay waxaan ka dhicin hore uga dhicin Soomaaliland oo taariikh ah
waayeelka dhalinyarada ciyaartooyga sport cid waliba maanta waa bari uu buuxsamay garoonka waad ogeydeen codkina looga baahnaa waanu dhaafnay aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta waxa ka dhacday Soomaaliland wada leeyahay ururka Waaberi ayaa isu diyaarinaya maalmaha soo socda in sidoo kale cudud uu uga muujiyo gobolka Saaxil Sanaag iyo Sool waa Cabdiraxmaan Almis telefishin qaranka Soomaaliland Hargeysa